murtida maanta. kulanti wanaagsan daawadayaal dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii murtida maanta. barnaamijkeenna waxaanu ku soo qaadanaynaa murtida halkudhageedu yahay waxaa jira saddex dhashay, saddex isdhashay oo saddexba saddex ay dhashay ayaa jira. saddexdaa isdhashay waxay kale yihiin mas dhalay baa jira, mas abur dhalay baa jira, abur mas dhalay baa jira. saddexdaa isdhashay ayaa jirta baa la yidhi, oo murtida iyo mahmaahyada soomaalida ee qirada iyo magaga badan aynu markaa kala soo dhex baxnay maanta oon doonaynaa bal halkan inaynu ku lafagurro. waxa weeye murti walba oo lasoo qaato ujeeddaa laga leeyay, ujeeddayna ku baxday. marka waxa weeyaan ujeeddadaynu ka leenahay waan sheegi doonaaye, bal horta aynu fasiro oo waxa weeyaan bal sidaa waxaa isdhalay siday isu dhaleen iyo macnaha ku jira aan sheego. waxaa la yidhaahdaa dee waad garanaysaan oo isdhaliddu dadku way isdhalaan. waad og tahay haddaanan la isdhalin nebi aadam laga soo bilaabo calayhi salaam ilaa maanta aynu joogno, aadamigu wuxuu ku tarmaa waa isdhalid. waa rag iyo dumar ama nin iyo naag isguursaday oo markaa ubad ay ka farcameen. waalidku waxaa la yidhaahdaa ubadkiisu wuxuu doonayaa laba waxyaaboodba inay uga ekaadaan, laba waxyaaboodba inay uga ekaadaan buu doonayaa baa la yidhi waalidka ubadkii. waa koowoo midda hore horta muuqaal inuu uga ekaadaa la doonayaa, muuqaal inuu uga ekaadaa la doonayaayo waa inuu ilmuhu hooyadii ama aabbihii uu egyahay, saasaa la doonayaa. maxaa yeeley waa halka soomaalidu ay ka tiraahdo haddii wiilku ama gabadhu ay aabbaha u eg tahay, aabbahood ay u eg yihiin ilmuhu, hooyaduna way ku eedla'dahay, aabbuhuna uu ku uursan yahay bay yidhaahdaan. hooyadu way ku eedla'dahayoo waxa cad inuu odaygu dhalay ilmahan, aabbuhuna uu ku uursan yahoo waxa weeyaan wixii isaga meesha uu dhigtay baa ilaahay siiyey. marka aabbuhu horta waa koow, waalidku waxay ka rabaan ilmaha waxa weeyaan labada tilmaamood, mid horta waa inay u ekaadaan waaye ilaa wuu ku dhalay. midda labaad waxaa weeyaan waa inuu dhaqankiisii leeyahay, waa inuu xirfaddiisii leeyahay, waa inuu wixii bulshada uu ka ahaa uu ka noqdo isaguna. waa dabeecadda labaad ee waalidku uu ka doonay, dhaqankii waalidka inaad leedahay na iyaduna waa wax kale, waa ta labaadee loo dhalaa. soomaaliduse waxay tidhaahdaa middaa dambe iyadoo sidii la rabo inayna noqon inta badan adkaynaysa oo caddaynaysa, anaa ku dhalaye isoo raac lama helo ayay tidhaahaa soomaalida markay saluugaan ubadkii ay iyagu dhaleen ama ubadkii nin wanaagsan uu dhalay ee raaci waayey. qof wanaagsan uu dhalay, rag iyo dumarkuu doona ha ahaadee, anaa ku dhalaye allah anaa ku dhalaye isoo raac lama helo horaa loo yidhi bay tidhaahaa soomaalidu. waxaan doonaynaa maanta waxaa jira saddex dhashay, mas dhalay baa jira baa la yidhi. mas dhalay waxaa laga wadaa maskii dhulka dhul socodka ahaa, haraqii dhulka guurguuranaya xamaaratada ahaa marka looma jeedo waa un hadalkaa la marinayaayo waa un hadalkaa lagu sarbeebinayaaye waxaa loo jeedaa qof wanaagsan oo qof wanaagsan dhalay wey, geesi dhalay wey, deeqsi dhalay wey, aftahan dhalay wey. mas dhalay waxaa loo wadaa waalid wanaagsan oo ilmo wanaagsan oo isagii ku bannaan dhalay
mas dhalay waa ka eed male wuu isdhalay qofkani wanaagii hadduu aftahan ahaa wuu yahay hadduu deeqsi ahaa wuu yahay hadduu geesi ahaa wuu yahay waxa kaloo iyadana jirtay dhaqanka ku jirta mas abur dhalay baa jira nin wanaagsan waalid ama hooyo wanaagsan oo ilmihii ay dhaleen ku banaanaan waayo ilmo xun ka noqday geesi buu ahaa deeqsi buu ahaa dad ururiyuu ahaa aftahan buu ahaa wuu xishood badnaa wuu cilmi badnaa haddana ubadkii ay dhaleen intuba way noqon waayeenoo wax kale oo waxay noqdeen nolosha ka dhacay oo xuno waxaa weeyaan ayay noqdeen nolosha ka sagsaagay bay noqdeen markaasaa waxaa la yidhaahdaa maskan abur buu dhalay abuurka waxa weeyaan waa xumbada iska baaba'day markay dabayshu marto ama ma ahe iska baaba'da markay dabayshu marto ama ma ahe maska marka horeba xunbuu dhalaa xumbadaasaa marka dambe noqoto lulumadii iyo wixii sidaasuu noqdaa sida rahawba uu sameeyo marka wuxuu noqonayaa marka mas abur dhalay waxaa weeyaan waa qof wanaagsan oo magac lahaa oo uu ka tegey ama dhalay oo ka tafiirmay qof aan magac lahayn oo bulshada dhexdeeda wax qiimo aan ku lahayn qofkaasa waxaa la yidhaha waa mas abur dhalay waxaa kaloo iyadana jirta ka saddexaada abur mas dhashay baa jirta qof bulshada dhexdeeda wax qiimo aan ku lahayn oon karti badnayn oon aftahan ahayn oon geesi ahayn oon deeqsi ahayn oo bulshadu iska ahaa qof caadiya oo wuxa uu dhalay ilaahay wax ka soo saaroo lala yaabay baa jira waa abur baa qof liita ayaa wuxuu dhalay mas qof adag ayaa geedlab dhalay marka taasoo kalena ilaahay abuurkiisa weeyaane waxa weeyaan way dhacdaa marka bal eeg mar way isdhaleenoo way isku bannaan yihiin marna waalidkii baa wanaagsanaayo haddana ilmihii baa xumaaday haddana waxa weeyaan waalidkii baa xumaayoo liito ilmihii baa wanaagsanaaday marka intaasoo dhami way dhacdaa oo nolosha haddaad eegtood hadda adigu u fiirsato mahmaadaa markay maanta aada maqasho kadib ood bulshada dhex gasho waxaasoo miiran baad arkaysaa laba isdhasho isku bannaan mid dhalay midkii dhalay uu ku bannaanayn ilmo ka wanaagsan waalidkood waxaasoo dhan waad arkaysaa ujeeddadan usoo digiya dam leeyahay ee murtida maanta aan usoo qaatay waxa weya dalkeenni waxaa ka dhacay dhibaato weyn 30 sano in ku dhow ayaa la baaba'o oo la burburay oo la kala tegey oo la dhintay oo la xanuunsaday oo la waashay oo la qaxay oo la kala tegey Soomaaliya meesha ay soo gaadhay magaca iyo halka wanaagsaneen ku naalo iyo meeshan wanaagsanee aynu degannahay si cadowga looga ilaaliyey oo inaanu cid kale oo Soomaali aan ahayn ay timaado looga ilaaliyey dadkii hore ee Soomaalida awowyaasheen baa awooddaa lahaa garashadaa lahaa dadaalkaa lahaa wadaniyadaa lahaa aftahanadaa lahaa geesinimadaa lahaa war waxaa loo baahan yahay jiilka cusubow oo aan anigu u bixiyo jiilka foorarow war jiilka cusubow waxaa loo baahan yahay awowyaasheen iyo aabbayaasheen inaynu ku dayanno waxaa loo baahan yahay inaynu feejignaaneen kor inaynu feejignaano oo aan foorarka ka kacnaa loo baahan yahay maxaa yeelay Soomaalidu waxay tiraa qof hoostiisa eegay hareertiisa ma eego meel walba maanta cadowgii Soomaalidu ama dhulkeenna يعني عد والبا way doonaysaa marka sidaa darteed waxa loo baahan yahay jiilka cusubow waxa loo baahan yahay inaad noqotaan mas dhalay waxa loo baahan yahay inaad noqotaan mas dhalay awowyaasheenna hore inaad ku banaanaataan baa loo baahan yahay laakiin looma baahno inaad noqotaan mas abur dhalay inaad noqotaan looma baahno awowyaasheenna hore wixii ay tabceen ay ku tarmeen inuu khasaaro noqdo looma baahno ood ku banaanaan weydaan marka waxa loo baahan yahay war dalkan aynu leenahay ee qaniga ah ee istiraatiijiga ah ee khayraadkiisu dihan yahay in waxa loo baahan yahay dad awowyaasheen la mid ay soo baxaan oo difaaco ilaaliyo midnimo leh ilaa midnimo wax lagu dhowraayo lagu ilaaliyayo lagu difaacayo ayaa loo baahan yahay oo awowyaasheen iyo halgamayaasheen aanay xawaashi iyo iilku calool xumo iyo dhibaato aanay la hurdin baa loo baahan yahay
dhegaystayaal daawadayaal barnaamijkeeniina halkaa inoo joogo. murtida maanta.